Erigabo was Sanaag was Somaliland. waxaan u maleynayaa Hargeysa laga yaabo mooyaane inaan cidinayga badsan doonin imaatinkeeda mayhi madaxweyne ku xigeen Somaliland baan ahay mayhi madaxweyne ku xigeen galbeed mayhi madaxweyne ku xigeen awdal mayhi madaxweyne ku xigeen Somaliland baan ahay Erigabo waan imanaya waa dhisaya gobolada oo dhan baan Somaliland baan madaxweyne ku xigeen u ahay gobolada oo dhan way siman yihiin waa maraya madaxweynaha wakiilka ahaanaya horumarkoogan ka shaqeynaya imigana waxaan wadnay dan guud bay ahayd dan gaar ah ma ahayn dawladnimadii baan soo celinanay waana wada ognahayo haddii ciidanka qaranku au in yar liico dawladnimadu ma xoogaysato meel lama tagto horana waanu sheegnay dhowr jeer laba ciidanna ma wada jiri karaan Erigabo وسناك بكمتاي وجعلها شعيل كلام ما هنا هدي عرقابة بكتو عيني عافمات قبين Somaliland ما بكسا هدي عيلف وين بكتو Somaliland ما بكسا قبل كسناكنا إلى هاي نتصو هاي نجرنسيو قيمه ليه هاي ما أنت دولة وين أدونك جرن لها هدي لسين لها سناك والعرقابة يقبل كسناك عن جرن وحوي هاي إلى هاي وحود دقي أنت أنا كثر هذه كبار باري أنت وحى إلى هاي دقي والله وضنا يدلوا أنت لا عليك بين أقلين وان كفايدين تونا هدي لهي راهو قرمينتو وين فضوضين وين فضوض هاي أنت هذانا بو هذي وحن لا هاي فريم بانو دريا وحن لا هاي ددشية قرمينتا حلنا كل هذيننا حاجان كلا كل هذيننا ددشية عيدا كلا قرمينيا عيدا كنا وعودن دل كنا وعودن قرن كدم بويا هيو عيدا قرن كلا دسيا لو ما بهنا عيدا مدني هو يراو ودم من دفاعية لقى بلابو ما أنت أنا قاعدين عريكابو عيدا كقرن كاو حل صارن وسراكيشي سيال كان شوكتين بدني وكلا دون بوليس لا عد والبلا أو ميلتري له ayaga militariga ciidankaas oo xil saaran ayaga aan dhisana inagu iyaga aan dhisana hala dhiso nuxurka wadani intaas oo doorasho galay intaba Erigabo number 1 bay ahayd waa idin ognahay xaqna waa u leedahay ka duwan inta kale inaanu dhisno Erigabo xaq bay u leedahay dawladda aad dhisteene لسه دولته horta anu maalintan Erigabo ku soo socday ilaahay ha caafiyo meeyirka Allah ha caafiyo anu wada ducayno meel walba waan uga duceeyaa ilaahay caafimaad isagoo socda ha yimaado insha Allah markuu yimaado soo caafimaado ana ku soo dhaweyn doona dalka Erigabo ana keen doona hadii Allah ilaaho maalintii waan saragnay maalin ka horeysaan saragnay yar baan sheekaysanay ما والله هاي بدأ Erigabad ير مركب بس كده ما عم لاقي وقت حنون خوي مدي أمر إلهي بهيد إلهينا هو قد جو خير الله هو قد جو وإلهينا عافيه ودنك سيدان هروش جاي قرمين تاني ويفضوا ضيد تكليك عكتوا نوادين عيلف وين كيف جينا بقى كوال قيب قادنو أنو دعينو إلهي نبدي سوعلي عيلف وين waayo haday fartu ku xanuunayso jirkaagu ma seexanayo yeynaan dhayalsanine suldaanka xataa waxaan ku yiri adaa soo safray tani dib ma lahayne taana u joog baan ku yiri habeen dhaweyto marka ilaahay taana haynoo xidho ta dambe waxa weeye asxaabtu markay soo noqon nabigu wuxuu yiri dagaalkii yaraa baan ka soo noqonay kii weynaa baan soo noqonay qaramayntu way iska yarayd qaramayntu way yarayd way dib yarayd laakiin dhismihii dalka ayayna sugaya inaynu dalkeena dhisno dawladda la isag taago xilalku mushkilad ma way iska wareegaan qaranka dawladuna ma qalala intii cabanaysa ma qalale maalin baciidun baa haysa xilnayaan wax weyn laga dhigin laakiin horumarka dalka ayaa muhiima inaan dalka horumarino gabdhuhu aad iyo aad uga qayb qaataan waa dadka dhibta badan ku dhacdo
ودتك سمحنا ولي بان عبرننا ويدين وجانا هدي الله يراهو هل كانت كجيرتان كجير الله يدين كرامية لما أنتين وحويا وحن إن صارن واجب كا إنه دلكينا دسنو وأنا نكسون قرنا عريق أبو بلنتي عن قارنا هيد مشاريع دي هذاني بقول وحاي لكن أنا وحولا كينيا وأنا وحولا كينا وحنا سيدنا وحنا وتوسعنا لكن dhagaxdhigiyo ballanqaadiye iska dhagaxa waxaan dhignay guriga ee barasaabka dhagax baan dhignay marka kaasina waan ka bilaabi doonaa gudoomiyaha waxaan leeyahay iska niyada hal hagaajiye reer Arigaaba guri fiican baan idin dhisana aan waxtooyadana waxaan rajeynayaa inaan xafiis ka sameeysto halkan oo aan idinka qayb noqdo ilaahay waxaan ka rajeynaynaa in ilaahay tawfiiqdeena waafajiyo ilaahay waxaan ka rajeynayaa wadajirka Soomaaliland inaynu ka shaqeyno oo ummad wadajirta aynu noqono oo aynu wadankeena dhisno wadankeena maanta dhibaatooyinka ugu waaweyn waxa kamid ah shaqo la'aanta wadanada ugu sareeya kamid ah Soomaaliland marka shaqo la'aanta halka markay taagan tahay qof yaroo xil loo magacaabay iyo wareegtada loo magacaabay waxbayna tari mayso laakiin dalka inaan dhisno sanaagna waa gobolka ilaahay qaniga ka dhigay cidii waxay ganacsada Soomaaliland oo dhan waxaan u tilmaamayaa oo aan ku boorinayaa in la maalgeliyo wadanka oo haddayna inagu maalgelinin cid kale maalgashan mayso qaramayntaasina gobolka wax weyn bay u tarasaa waxay u tarasaa in calaamadii asayd laga qaado mashaariicda iyo adduunkuba ay iman karaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaynu noqono ummad isku tashata isku kalsoon is aaminsan madaxweynuhu Arigaabo iyo gobolka Sanaag gogol buu ku baaqay nabadeed anigu markaan imaaday waxaan leeyahay waan fidiyay gogoshii baan fidiyay maantana waan masaxnaa wixii board ku duulduulay baan ka qaadanaa reer Sanaag meel kastay joogaan ama dibadda joogaan ama gudaha joogaan nabadii baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqanaa inay gogoshii taalo cid walba waan soo dhaweynaynaa nabad baa wax lagu yahay nabad baa wax lagu yahay col iyo abaar ma tarto abaaru baa ka dambayso colkana marka meel kastoo ay reer Sanaag joogaan dal iyo dibadba waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaataan nabadaasi way gogoshii way fidsan tahay inay ka qayb qaadataan oo dadkii u dhashay ee deganaa ee idin la wada lahaa ee duruuftu keentay inay ka tagaan in la soo dhaweeyo inta timidayna in waliba la soo dhaweeyo inta kale loo baaqo waliba gabdhaha waxaan ka codsanayaa inaad qayb weyn ka qaadataan sidii dadkii magaalada wada deganaa ugu soo wada noqon lahaayeen way inta inay ka maqan tahay waxa dul saaran hagoog baa dul saaran marka ilaahay idinku xariisheynana inay nabadu inoo soo noqoto Soomaaliland oo dhanba nabad baan deris kastaba nabad baan ugu baaqanaa nabadeydani ku jirtaa nabada saan rabnaa in la nala garto oo cid deriskiiba ay nala garato gudaheennana ilaahay inaynu ka gudubno wixii qabaa'ilka ah qabyaaladii aan ka gudubno aynu noqono ummad isku kalsoon oo wada tashata oo horumarkeeda ka shaqeysa